gabadha hadda meesha ka muuqato soo taqaana Istarbaala Istarani ayadu waxa naga dhixay muddo sanad iyo 2 bilood. السلام عليكم maanta waxaan ka hadlaynaa wax social media ka taagan waayahay waa barnaamijkeeni hadalhaynta social media ugu horreyn waxa soo qaadanaya in la leeyahay fahmo fiicnay waxa ka oohiyay ayaan halka badka keenaya ama aan bulshada hor keenaya marka labaad waxaan soo qaadanayaa mid yiri lacag ayaa iga cuntay inan ayaa waxa iga cuntay lacag aad iyo aad u tiro badan oo caadi u ooyayaba ninkan waaba ooyaya horta waxaan ka horeynaa welibana abu ooyayaha master ooyayaan ka horeynaa haddaba waxaan ka codsanaya hadda channelka soo booqata like-ta share-ta subscribe-ta waxaba inaad isku darto bal horta aynu taabano ama aynu horta aan idin geeyo ninkan master ooyaye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحمانتي musiiro qiraaba la salay asxaabtay waa in salaam saax horta si adag waa kaaga qaadnay قفل بو دوك جواب لي تاريخ حنون بو ليهي oo noloshu ka samaro aniga waxa sidii kara xanuunka maanta noloshu wuxuu yiri qof kasta wuxuu leeyahay taariikh nololeed foolxun ha my brother kiga qof kasta waxa uu leeyahay qiso u gaara kasoo maray misna qiyaanada leey hadaba qisadu isagu sheegayna qiimeeyna bal in qisada si raga tahay mid aan ku xalin waay in aan qarsado misna aan dadkii yani si bareeqaan ugu xaliyaan arintaas oo awoodi waayeen laakiin waxaan isku dayay arinka waqiyaano ina si gaar ah xaliyaan isku dayay waana xalismi weyday wallahi arrinka ninka ku dhacay taro ma arrin geeri aba taro waa maxay arrinkaasi la imaado baraha bulshada si gabadha meesha kiiga muuqato iskii ilaaliyaan ragga hadda distiga la sheekeysanayo inay qiyaanilay tahay uriyaa war magaca boqol meel ha ka dhiciniyo tiyar bu sawirkeedii soo dhigayo gambar yar ka soo fadhiyo isku leey ragga Soomaaliyeed ay iskaga ilaaliyaan inantan niyo la ilaaha illallah war marag Soomaaliyeed inaan uga baqaraysaa maanta inan bad rag Soomaaliyeed uga baqaraysaa inantan say iskaga ilaaliyaan ragga Soomaaliyeed naga nagu la ilaaha illallah abniyo aan ku socono dadku noocyo badan aan ku socono dadka ilaahay abuur aad u noocyo badan yihiin oo inta qof aan aamini karin oo loo kalsoonaan karin oo jacayl siin karin oo ixtiraam mudnayn sababtoo gabadha hadda meesha ka muuqato soo taqaana Istarbaala Istarani ayadu waxa naga dhixay muddo sanad iyo 2 bilood jacayl baan naga dhixay jacaylkana wuxuu isku bedelay in ayada aan guur aan qabanqaabino maalinka ugu dambeysay oo aan rabina ayada soo doonto oo waxba aan soo diyaarsaday oo familka waxba aan ka soo diyaarsaday habeenkeedii bay soo wacday ayadu wali oo si walwal ay soo wacday oo qof argagaxsan camal ay soo wacday ilaa qofku markuu yacni ku dhakraayo masana uu rabo inuu ku qiyaano wuxuu ku gabanayaa gabasho weyn ku gabanayaa faansitaan bile rag badan soo qiyaanay arrinta way faansiyan jeclaa okay aniga kuma xumayn hadalka waan ka dhuray waan wareystay maxaa jiraan dhahay waxa ay sheegtay inay maamo eedida ku xarsuusta xamar iskara tahay waxaan ugu tiraaday haddaan yani aad biri soo doonato oo mar uu meherkana dhaco guriguna inuu ku xigo haddaan mar guri galno yani fursad ma helayo aan ku baxo oo yani meelaha ku aado ilaa qof la qabaan ahay oo markaas xasan marka waxay weydiisatay inay biri yani ay ku baxdo si degdeg oo yani aan dib u dhigo arrinta guurka okay ana waan ka aqbalay laakiin waxay isi raacsay inayna haysan lacagta ku bixinayda eedida ku salaamay okay ana kuma xumayna meherka hadda aad haysid oo ortayna ugu meersid yani meherkii ka jaro استغفر الله ابليك خيالو يبقى كل على سي سكون مهركا ka jaran muraya way lacag yani $400 oo baahanahay oo yani xamar aan ku aado oo tigid aan ku dirto ilaa wax ku dhaqaaqo ma hayo maamada hooyo masaakiin waa wax way ma awoodo ay sheegtay ma xumaan dhahay waan diray ilaa in ayada aan isku geyn inay ii soo laabato laakiin markii xamarta tagdanaheeda gaartay balow ay saartay marka asxaabi waxaan ka codsanayaa inaad xaqiijiso ii soo dhicisaan oo qoftaas wixii ahal yihiin oo isku dhow yihiin ay ka sii qaanaan xoolaheeda ii soo qaadaan لا 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 ولا لا راجعون لا لا هو الا لا راجعون والصاحب هرتي نغيسو هرتا قصه عن يري markuu dhacday brother kayga nin lagu qoslina ma mudin ma fahanti
laakiin waxa weeye saaxiib waxyaalo badan oo qaldana samaysay ku nasteexaynaya horta gabadh lacag ay gacanteeda gashay ma soo noqoto marka koobaad saa ogaataa fiican dad gabadha wada sheeko iyo arrimahaas ahayd haddii gabadhaas lacagteeda oo jeebadeeda gasho waxa waaye haddii aad xataa imika dad ka dacweyso in xaafadooda ku qabsataa laga yaabo ayaa kuli gabadha lacagtaasi waa lagu helaya waa adee lagu dilaya adee caadi lagu dilaya waxaa gabadha lacagta usinaysa iyo kuli gabadha lacagta ana ma dad baahan bana moodisa haddii imika lagu dhahdo adaaba lagu qabsanaya markaa midaan ku sheegaya saaxa horta ninkan meeshuu jooga garan maayo laakiin meel dhaqankeedu waa leeyahay uu ninkan joogaa waxa uu ku leeyahay meherka ka jaro gabadh aan isguursan oon weli u fadhiisan buu ku leeyahay lacagta lacag siisi kadib meherka ka jaro waa adu sheeko cusub baa keentay saaxib runta marka la sheego nolosheeda hore umaad arag wax noocaas oo kale ah waxa weeye gabadha sidaada lacagta u siisay dee waxa weeye waa la kala caqli badan yahay waa lagu maskaxeeyey maskax kaa weyn baa ku heshay ilaahay hortaa ku boogadhayo $400 lacag yar ma aha lacagtaas laakiin qulid waxaan u malaynayaa inay meel yaro fudud kaa soo gashay sababtoo ah $400 gabadh oo xiriir naga dhexeeyo oona asxaab hore sii ahayn oo qof oo abaal ila aanay ahayn ii sheeg hooyadii ahayn walaashay ahayn laakiin qof jas xiriir naga dhexeeya tahay xiriirkaasina xagga ilaahay ku xidhan yahay inuu rumoobi doonin iyo inaan rumoobi doonin waxa weeye dee ii sheeg haddii aan xataa wax siinayo waxaan horay baan siinaya ma fahantay waxaan meher kasi jaranayo iyo waxaas waxa weeye waa rag ceebeys brotherkayga markaas sheekadaasna halkaa ku xidhan saaxiib koran la dhaqanka noocaasna ma naqaano saaxiiba ka dhac waayahay bal waxaan horta iyadana dul tegnaa inan magaceeda la fahma fiicnay oo social media ooysay bal waxaan idin tusayaa wax ka ooyay horta muuqaalka ooyay waa muuqaalkan waayahay muuqaalkaas way soo duubtay waxay soo dhigtay barta TikTok muuqaalkii waxa ku xigay muuqaalkan isagana eega daba ku ciyaarta oo haweenka cadaadisay goba caadadii inaa la raajmaan horta horta aan idin yar bilaabo waxa jirtay ninka xumeeyay inantan horta inantayna oyda iyo waxaasna wax ku kalifay midaan fool xun oo nin rag ah sheeganaya oo wajigiisa markaad aragtidaas sooran soo waraabe aan weliga dhalin oo sac baa inanta ku kalifay waxaas haddaba ninku waxa uu ahaa darwiish si heestii hore soo qaaday magaranaysa kadib commentiga wax lagu qoray war hayaay war mar kala doonaysa wax noocaas lagu qoray commentiga akhriday muuqaal oo hinay ka sadana soo dhigtay markaas inantan wax kale ku soo kala laba kacleeyay ma jiraan ba just waxa weeye commentiga laga caayay heesta darwiishta soo dhigay oo leeyri waa niyo maxaa kugu dhacay ninku soo ku xumeeyay waxan baa soo xasuusiyay muuqaalka oo hinta soo dhigtay haddaba hal taraanka kaaga diraya walaalo waxa waaye social media way dhaaftay waqtigii la ooyi jiray waqti aan la isku taxan muuyo social media maraya marka laamid samee inaad adkaysato oo hadii kun waxoo kala dhacaan aad farxadaada ka wadato iyo inaad social media isaga baxdo labada bis oo soo kala dooro muuqaalka inta si joojinaya waxa ka codsanayaadna insha Allah ila muuqaalka xaqiiqada siiso